السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب ونعكسن أصحابي ميل كستوات جوكتان وقلب نمو السنينة تاريخنا يكون بيغان تاي سدح نوفمبر سنة كالباكون يشان يلاباتن وبرنامج كان يلابات معنتو السنينة ندين سو قد بنيو قضب بدا يوررك برنامج كان يديكوها ينو حكم النقل دورا شركي كسعودي مقالة اسطنبول اللي احمر يي قار كمدا الدولة ده إسلام كوسير هدو دا او غزال لوغا هدلي محا كسو كردي baarlamaanka Israa'iil oo maanta sameeyay go'aan la yaab leh oo ah in la toogto maxaabiista Falastiiniyiinta. Tafaasiil ku saabsan sheekadaas ayaanu barnaamijka idinkugu haynaa. Waxaa soo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa lafaha ilaa 45 Falastiiniyiin ah ayaa la sheegay in Israa'iil ay soo dhiibtay maanta. Qodobadaas ayaynu barnaamijkeena galabnimo ku faahfaahinaynaa. inta aan ku jirno warar cusub haday soo dhacaan waan idin la socodsiin yaqaano kaniisadka ayaa maanta guddidiisa amnigu waxay isku raaceen go'aan ah in la toogto Falastiiniyiinta maxaabiista ah waliba marka waxa la isweydiinayaa yaa la tooganayaa sharcigan yaa la rabaa in lagu toogto iyagu waxay leeyihiin dadka loo aqoonsado argagixiso cid kasta oo Falastiini ah oo loo aqoonsado argagixiso waa la tooganaya waa sharci uu muddooyinkan waday uu ka shaqaynayay ninka la yiraahdo Ben Gvir nimanka inta aan xabsiga ku hayno aan toogano aan saasiyano maxay halkan noogu dhooban yihiin ninkii dhahay waa marka hadda waxa leeyahay sharciga argagixiso yaa ah marka erayga bixinta argagixiso yaa loo yaqaanaa qof kasta oo la qabto argagixiso nag والله فلسطينيين بركة بوق فربنا مركا أريكا كتاجن أو برلمان كجود دي شيء أمني ويسكر راعين برلمان كجود أيا لجين دورا للي هاي كدبنا قولها وسير هذا أيا لجين دورا شيء كذا مركا هالكاسي كسرعون دونتا لكن هذا قيبتي كوادوا باللعودي نكي بن غفير هاي سوونا حلو حلي هاي وحن وجمعت علينا برايم مينستر نتنياهو إنه يسوون نلا قاعتي شيكذا ويسوون تاجرسي مركب وابا سائر ربنو ليه فلسطيني عن قبلنا وارجعيسو وابا لدليه مركب شيكذا مركب هذا مركب لوجا قايلين يا بوق فربضاء كتيرة هذا ما مركب أنا تصورك وجود بيا الجزيرة يقرطي الجزيرة وحلها هاي كنيسة كبرلمان كإسرائيل ayaa waxa la sheegay inuu sameeyay qaanuun lagu tooganayo maxaabiista Falastiiniyiinta warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay guddida amniga qaranka ee kaniisadka baarlamaanka Israa'iil u qaabilsan ayaa isku raacay mashruuc qaanuun ah kaasoo banaynaya in la dili karo oo la toogan karo maxaabiista Falastiiniyiinta haddaba guddidan ayaa mashruuca qaanuunka ay sheegeen inuu yahay قانون مركزي ضد يو عضين لو سميي وحنا لا شيغي ان مراحل كلا دوان oo dhinaca sharciga oo soo socda uu mari doono oo marka qaybo kala duwan codayn kale ay u dhiman tahay way marka waxa leeyahay marka qaybo kala dhiman laakiin guddidii amniga uu ka soo gudbay baarlamaanka guud oo codaynaya kadib uu dhaqan galaya marka rajada laga qabo maxay tahay rajada laga qabo waxa leeyahay waa isku raaci doona yahuud Falastiini hal dilo waay laakiin maxaa soo gaaraya dadka Falastiiniyiinta arika maxay noqon kartaa sheekadaas marka waa sheeko aad u wareersan marka waxa leeyahay waa qorshe kale oo cusub oo Netanyahu iyo kooxdiisu ay ku doonayaan inay wax walba oo nabad ku saabsan ay ku weeqaan marka nabadan iyagu dal ugu ma jirto oo maartay xaaladoodu hadday nabadi dhacdo waxa waaye ma la maxkamadeeyo iyo mid maxkamada u yeerto mid maxkamadda caalamiga dambiyada u yeerto wixii noqonayaan marka nimankan waxa leeyahay dagaal iyo fawdo inay ku dhex jiraan ayay rabaan leeyahay marka qodobkaas isaguna halkaas aan kaga gudbaynaa bal waa arki doonaa kullay wixii kale oo laga soo saaro aragtiya laakiin go'aanka goordhow ayay gaareen guddida amniga qaranka ee baarlamaanka Israa'iil magaalada Istanbul saan xalay ba idin sheegay waxa ka bilaabay maanta kulan ay leeyihiin 7 dawladood oo islaam ah waxa isugu yeeray Turkiga
turkiga intaanu isugu yirin toddobada dowladood waxay la kulmeen xamaas wafdi ka socda dood kulul ayaa dhex martay xamaas iyo turkiga waataan idiin sheegay turkigu waa garowsaday in marka la isugu yeero toddobada dowladood ayaa marka lagu ballamay toddobadii dowladood kulankoodii yaa socda hadda wax ka soo baxay weli ma arko laakiin waxbaa soo bixi doona barnaamijyada dambe idinkula wadaagi doonaa laakiin waxaa dhanka kale hadlay Erdogan maanta kulanka wasiiradu isagu kama hadlin laakiin kulan kale oo ay lahaayeen ururka islaamka ayuu hadalka jeediyay uu soo qaatay marka hadalka wasiirada halkan ka socda iyo waxa la doonayo Israa'iil wuxuu yiri nabad ma rabto Hamas waa dadka nabad raba adduunku waa inuu ogaadaa ninka Erdogan maanta furkuntur aad u caroob wuxuu yiri dawladda islaamku waa inay arrintan go'aan ka gaaraan waa in laga soo shaqeeyaa jaamacatul arabiya ururka islaamka labadaba dadka reer Gaza sidii loo garab qaban lahaa yaan la isku hadlaynin dawladda kale dadka dhulkoodii wuxuu sida loogu dhisi lahaa halkooda u joogi lahaayeen nimankanna wuxuu yiri maalinkii heshiiska la garay ilaa maantadan waa niman aan marnaba heshiis fulinayno adduunyadu markaa ogaato marka turkigu intii laga rabay wuu hadlay inta kale dawladii kale islaamka afka haysta haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray kulanka Istanbul ayaa socda iyadoo laga munaaqashoonayo marxaladda soo socota ee Gaza iyo xaaladda guud sida ay hadda tahay wasiirada arrimaha dibadda dawladaha islaamka ayaa waxay ku kulansan yihiin magaalada Istanbul ee dalka Turkiga maanta oo Isniina kulankan wuxuu gaar u yahay marxaladda soo socota ee Gaza sida laga yeelayo heshiiskii xabad joojinta waxa ka hirgalay iyo xaalku sida uu yahay dhanka kale waxa la sheegayaa madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay isagoo meel fagaara ka hadlaya xarakada islaamiga ee Hamas inay tahay mid heshiiska doonaysa oo ay ka go'an tahay oo heshiisku daacad ay ka tahay haddaba waxaa kulanka ka qayb galay toddoba dowladood oo kala ah Turkiga Sacuudiga Qatar Urdun Imaaraadka Pakistan iyo Indonesia haddaba waxaa la sheegay in laga wada hadlay arrimo muhiim ah waxaa laga sheekaystay dowladahan toddobada ah madaxdoodu inay Trump kula soo kulmeen bishii September waddanka Mareykanka iyadoo Trump xilliga uu keenay qorshaha nabadda kadibna la isla qaatay haddaba madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay Hamas inay tahay cidda doonaysa hirgelinta heshiiskan xabad joojinta oo ay run ka tahay laakiin wuxuu si kulul u cambaareeyay Israa'iil inaanay doonayn inay fuliso heshiiskan waxaana uu sheegay inay waajib tahay arrinka in markaa laga hadlo oo markaa dunida loo sheego wuxuu la hadlayay kulan ay lahaayeen guddida joogtada ah ee iskaashiga dhaqaalaha ganacsiga ee dawladaha iskaashiga islaamka oo Turkiga ka dhacay marka Erdogan wuxuu leeyahay nimanka kanu niman maartay nabad raba marka inta laga rabo marka maxay tahay waa in adduunyada loo sheegaa dad kanu inaysan nabad rabin laakiin Hamas ay yihiin dad nabad raba wixii loo diray ay fulinayaan maxaabiistii ay dhiibeen lafihii ay dhiibayaan wax walba ay qabanayaan laakiin nimanka maanta oo dhan inay wax istabamariyaan raba inay wax duqeeyaan marmarsiyo u keenan raba waa nimankan marka waa in Trump oo nimankan la hadla hadii kalena wuxuu yiri waa in runta la isu sheegaa inaysan Israa'iil nabad rabin oo waxa laga shaqeynaya maxaabiis raadis ay ka ahayn ujeeddo kale ay leedahay marka ujeeddadaasna wax kala ka dhalan karo yiri marka odagu aad u caraysnaa kii wasiirada arrimaha dibadduna wali waxba kama soo bixino way fadhiyaan laakiin isaga kulan uu ka hadlayay ayuu intan ka tuuray maanta uu ka sheegay waaye qodobka isaguna halkaas ay kaga gudbaynaa qodobka kale ee barnaamijka aynu ku soo qaadanayna wuxuu yahay Israa'iil waxay soo dhiibtay 45 Falastiiniyiin ah oo shuhada ah lafahooda oo ay markaa xabsiyadeedii iyo meelaha ku dishay 45ka ayaa maanta ICRC soo qaaday iyaduna Falastiiniyiinta u dhiibtay ayadtu soo Israa'iil waxay sii deysay lafaha 45 maxbuus Falastiiniyiin ah oo ay haysay ayay soo dhiibtaa la leeyahay haddaba Israa'iiliyiinta ayaa 45ka Falastiiniyiinta ah u dhiibay hay-adda Lanqeyrta Cas maanta oo Isniina
arrintan waxay ka dambeysay kadib markii 3 lafaha Israa'iiliyiinta ah ay gudoomeen xalay oo ay soo dhiibtay Hamas iyaguna markaa ay gudoomeen marka hawshaas iyaduna halkaas ay ka socotaa waxa ku haray hadda waa 6 lafaha Yahuudi ah oo la raadinayo inta kale way dhiibeen 22 lafahoodii way haystaan 20 nool way haystaan 6daana waxa la leeyahay hadda maanta waxay u dhaqaaqeen deegaanka leeyahay Shujaaciya masaaridii Hamas iyo nimankii ICRC-da si burbur halka ku jira Yahuud marka looga soo saaro lagu tuhmayo haddaba qodobka isaguna halkaas ay kaga gudbayna qadar xayisiisha kadib waxaanu gali doonaa warbixino kale oo muhiim ah oo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyay Lubnaan ayaaba maalmahan caadi ahayd Israa'iil duqaymee wada Hamas nimankii Hezbollah godooday qodanayaan gantaale la yimaad sheeko walna halka ka socota haddaba wararkii ugu dambeeyay Lubnaan ka soo kordhay inuu barnaamij qaybtan ku soo qaadanayna Lubnaan xaaladeed وتأكد لبنان حزب الله هو يمد إسرائيل وقايل السين وكي قدر قدريان حزب الله وأمسين ما أنت ويسين إسرائيل ورّي قاضي ديار الدرونة وحبيك وررتي متكلا وحبيك وررتي ددي دشي ددي دعو عليك حزب الله وحيد هذا والله يسبرنا مردو حاول يرى النص عتمر كان ما يسترونه وحبا تصيدونا إلى ذين الدون والله يبيه هذا عمر كان تصو wararkii ugu dambeeyay sheekadaas Al-Jazeera waxa leedahay 7 qof ayaa dhaawacantay sida la sheegayo weerar ay Israa'iil ku qaaday hal qofna wuu dhintay weerar ay Israa'iil ku qaaday koonfurta Lubnaan maanta ay ku qaaday haddaba waxa la sheegayaa wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan waxay sheegtay qof inuu dhintay 7 kalena ay ku dhaawacmeen maanta Isniina meesha la yiraahdo baldatu sharqiyah ama magaalada la yiraahdo sharqiyah ee ku taala koonfurta Lubnaan haddaba warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegeen dhanka kale in diyaarad drone ay bartilmaameedsatay gaari oo markaa ku sugnaa deegaanka la yiraahdo baldat sharqiyah iyagoo markaa halka gaarigaasi gantaal ku dhuftay haddaba maalmahan waxaa socday warar ka imanaya dhanka Israa'iil oo ay markaa hanjabaad ugu dirayaan madaxda Lubnaan oo ku jiro madaxweynaha wadankaas marka hawshaas socotay say marka halkaas furin kale oo culus inay ka soo socoto way aragtaa laakiin waxa lagu leeyahay bal ka wajahdo ma garanayso nimankan godad dhulka hoostiisa iyo meel walba hubkooda ugu jira meel walba ay ku habaysteen waxbay u keensanayaan waxbay wataan howlay wataan tan iyo markii odaygii weynaa laga dilay oo duqaymo culus lagu dhuftay nimanku dib isu qaabeynay wadeen Hezbollah hubkoodana inay dhiibaan way diideen wax aan dhiibayna ma lahayn haddana marka waxa leeyahay hub fara badanna way heleen shaqo badanna way wataan marka haddana waxay yiraahdeen Israa'iil weeraradan way joojin laadahay hal luqaday taqaanaa yiraahdeen wada hadal wax la yiraahdo ma taqaan dawladda Lubnaan ha isku daalaneen nimankan annagii ayaga isnaqaaneen annagu hawl yar noo dhiman alaab yar meel ku rakibanayna bas waayna wala kala tagayaa marka hawshaas halkaas ee maray Lubnaan wuxuu ku cusubna barnaamijyada dambaanadii kugu soo gudbin doonaa فكري aragtino soo qora la garay oo share garay barnaamijka inta aan markale kulmayno asxaabay meel kasto aad joogtaan fadlan daawada barnaamijka saaka isaguna qodobo aad u xiiso badan baa ku jiray nabadgelyo